anigoo qaaday magaca City Heritage kama kana mid guddiga City Heritage ahna lay doortay qabanqaabada suuqyada iyo munaasabada xafladaas waxaan leenahay marka koowaad waxaan u hambalyeynaa dhammaan dalkeena Itoobiya gaar ahaan deegaanka Soomaalida iyo ismaamulka Dirdhabe oo kaalin weyn ka geystay dadaalkaas hadda socda qabanqaabo ilaa iyo dhammaantii hawshaas madax asaastay ismaamulka Dirdhabe halkaa markaan ka gudbo waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan cid kastoo wax ka geysatay arrintaas soo socotay lixdaas sano iyo markaa waxaan leenahay meel kastay joogaan dal iyo dibad wanaagsantihiin hawshaa culus ee nala gasheen ee nala qabateen intaa ka bacdi waxaan u hambalyeynaynaa odayaal dhaqameedkii ogaas Mustafa Maxamed Ibrahim oo hawshaa ka geystay gacanta libaax intii hawshaa ay socotayna har iyo habeenba nagula jiray dadaalkiisa faraha badan waxaa kaloo u hambalyeynaynaa dhallinyaradii nala bilowday hawshan bilow ilaa iyo iminka nagula jirtay waxaan u hambalyeynaynaa City Heritage guddoomiyaheega marwo ayaan cali muuse oo iyadu kaalin libaax ka qaadatay hawshaa inay hirgasho dhammaan waxaan u hambalyeynaynaa cid kasta oo arrintan ay khusayso oo dadaal ka geystay intaa markaan kaga soo gudbo waxaan si yaroo kooban aan u sheegaynaa xafladda qabanqaabadaas ee u dhici doonto ama munaasabadda soo dhoweynta leh ilaa ay ku dambeynayso xafladda qabanqaabadu waxay ku bilaabi doontaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo berri ay tahay taariikhdu 16 bisha 12aad 2024 waxaa ka bilaabaynaa soo dhoweynta airportkeena Dirdhabe kaasuu hogaamin doono insha Allah maayarka magaalada Dirdhabe mudane Khadiij Zohar waxaa kaloo kadib aan qaban doono waxa weeyaan inay bulshada ka soo qayb galaan qeybaha kala duwan hadday odayaal dhaqameed tahay hadday tahay dhalinyaro hadday haween tahay hadday hooyooyin tahay maadaama munaasabad ballaaran ay tahay oo laga ansixiyey heerka caalamiga iyo UNESCO waxaan leenahay si ballaaran ha loogu soo qayb galo xaflad aada muhiim u ah oo dhaxalgal ah xafladaasi markaan soo dhoweyno guddigaas soo galay walaalihiina uu hogaaminayo mudane Ibrahim Cusmaan madaxweyne ku-xigeenka deegaanka Soomaalida waxaa insha Allah xafladdu ay ka dhici doontaa guriga ogaaska ka ku yaala Booran kaasoo xaflad ballaaran lagu qaban doono xafladaasoo qoobsanaysa in ogaaska lagu toosiyey guushii dhaxalgalka ahayd certificate-keygii marka halkaa bay ku dhammaan doontaa laakiin waxay noo jiri doontaa dadku inay yar kala saaraan aan rabno xafladii weyneed baa inoo jiri doontaa oo iyadu 20 cisho kadib noqon doontaa taasoo lagu xusi doono si ballaaran meedaanka Dirdhabe ama meesha la yiraahdo stadiumka oo si fiican iyada loogu soo dhoweyn doono maamulka ugu sarreeya magaalada aan joogno iyo Itoobiyaba iyo dalalka aan jaarka nahay ee heerka wadaagno Djibouti iyo Soomaaliya oo iyagana nagala soo qayb geli doona munaasabadaas ballaaran ee ku sii doono insha Allah marka waxaan leenahay hambalyo bulshada u soo yeelay dalkeena Itoobiya gaar ahaan magaalada Dirdhabe iyaduna daymadka hoogii loo soo wooyay baarintan waxaan leenahay hambalyo intaasaan kusoo gabagabeynaya wanaagsantii saxaabada